xafada Edmonton ee waqooyiga magaalada London ayaa waxa ka dhacday xaflad lagu maamuusay sanad guuradii saddexaad ee maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb. waxa xafladda soo qaban qaabiyay dhalinyarada maamulka Ximin iyo Xeeb. waxa xafladda ka qayb galay oo ka soo jeediyay hadallo qiimo iyo qaayo leh mas'uuliyiin ka kala socota maamulada dalka Soomaaliya ka jirta. waxaa goobjoog ka ahaa xafladdaas madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb mudane maxamed macalin cabdullaahi tici. haddaba xafladda si u dhacday bal aan idinku duwo. Somalia Somali bane nikki kala saarno ninki kala socno ninki si xunu fakara haday taladii ku segte sidaad moodaysa maahe warmooy Somalia Somali bane سيبو هدي كواتو هدي سيدعيو نفديدو سمانتي يا حمانتي Somalia Somali حماد Somali حماد قفك مسلم كان ولكن وقفك مسلم marka waxa loo baahan yahay wixii Ilaahay nasiib in aad wax ka siiso habayaraadaan haday boqol baan kugu jirto konton ila ka siiso ama Abu Bakar oo kale aan noqoto geesi noqoto boqol kale asoo atirado Abu Bakar waa markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam su'aalu ya Abu Bakar arurti maxaa uga soo tagtay markaas uu yiri Allah wa rasuuluhu Ilaahay iyo rasuulkiisa ay uga soo tagay ilmahaas waana la arko nimankii hantida lahaa ee asxaabihi iyo khulafaa raashidiintii hore iyo raggii ka dambeeyay muluugta ahaa waxa ugu wanaag ku dhaganaa ee boqortooyada ku dhaganaana waxa la arkay aruurtooda toogsanaysa marka arrinta bil qaliil taasan ku dheeraaday sababtoo maanta waxaan u baahanahay mudanayaasha iyo marwooyinka ka soo qayb galay ee halka lagu martiqaaday ee martiqaadkii ajiibay waqtiga ku haboonaanay ayakana aad iyo aad baan ugu mahadceliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Ximin iyo Xeeb dhammaan waxgaradka caawa halkan martida ku ah haweenka ragga aqoonyahanka culimada diinka dhalinyarada dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. caawa halkan waxaan u joognaa sanad guuradii saddexaad ee dowlad goboleedka Ximin iyo Xeeb. waxaan leenahay insha Allah qolo waliba haday wax hagaajiso waa isku wada darsami doontaa marka dambe. jaalala madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada London. waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa magaalada London oo runtii markii loo fiiriyo isku dar qurbahoo dhan meesha ay degan tahay jaaliyada ugu badan ee Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. madaxweynaha Ximin iyo Xeeb maxamed macalin aadan tici waxaan ku leeyahay Soomaaliya maanta way jilcday waxay u baahan tahay kaliya qof u istaaga idinkoo ka faa'iideysanaya jaaniska jira waa inaad gogashii Soomaaliya waa inaad fadhisaan. waxaan soo dhaweynaynaa aan ku darsaday maxamed cabdullaahi oo tici loo yaqaan oo ah madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya. markaan u baaqayaa gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee UK maxamed ciise jaamac. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
walaalaha sharafka leh ee rag iyo dumar iskugu jira ee caawa halkan fadhiya ee diyaarku u ah inay soo dhoweeyaan madaxweynahooda qaaliga ee dhallinyarada ee sharafta leh mudane maxamed macalin cabdullaahi tiico odayaal iyo hooyooyin waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka haddaan u soo laabto ajandahayga caaway waxaan halkan caaway u hambalyanayaa imaatanka iyo rabitankan u hayo oo aan u wada hayno madaxweynahayaga mustaqbalka insha allahu mudane maxamed cabdullaahi tiico mudane madaxweyne ku soo dhawow gurigaagii labaad ku soo dhawow ummadaadii labaad ku soo dhawow waddankaagii labaad ku soo dhawow bulshadaadii kuu helanayd ee kuu taagnayd ee kula garab taagan hiil iyo hoo waxqabad iyo horumarkaaga بسم الله الرحمن الرحيم مركور وين سلام يا دمانتين سلامك بعدي وحي لورا لها يا هذا الكريمي انتي بنا هورا لو يري waxaan rabaa magacyo badan baan ku hadlayaa marwadayaasha Soomaaliyeed oo wadankan muddada joogtay magacooda ku hadlayaa marna waxaan ku hadlayaa maamulka cusub ee dhawaan la sameeyay la yiraahdo Juba Ras State waxaan aad ugu farxay haday markuu ka dhawaado oo yiri galmudug iyo ximan iyo xeeb waa isku mid waa sax waa fikrad aan qabno in la ballaariyo maamulada inta isqaada kartaba la israaciyo aad iyo aad arrintaas u dareynayna marka aniga marna magacayga Cabdullaahi Cirro iyo Cabdullaahi Sahal baa ku hadlaayo marna ku hadlaayo magaca Juba Ras State magacana marna ku hadlaayo odayaasha London magacooda waxaan soo dhaweynayaa waxaan balyaynayaa madaxweynaha aynu hadaan aad u jecelnahay ee qaaliga nagu ah محمد عبد الله معلم تيعاية وعلنا مدحوينه سو دواو على ذي بحضه iyo hadii caadi camaaro bas madaxweyne kama ahay waxaan rabaa inaad garab siiso maamulada cusub oo kamid yahay Juba Ras State waxaa laga rabaa inaad isu keento maamulada inta isqaada karto waxaa laga rabaa hadii ay maayo dhulkan dhibaatada ku jirto maamulada hadda laga sameeynayo رجينا الرجاح صامري قلب ذي حماني حبي حلوة بعد صارا وحلا لا يمر مدحوا إن صدوا وحاقوا توام مقدار وحلا قطع عن كرا ولا كرا مناسبة عاوز إذا أي تهاي وروح بدن تهاي وحكروا نقصونا هاي وحصلوا ترى هذا رجوا حاوفي عن الكتوسر كتيرسن رج بدن وقربها هذا أهل نكانا هذا نكانا وحلا ينكرنا إن هذا المال مريان هدف كي هندسها هذا الوقت كل شقيسان هذا تين حمانية حب ويسود ويننا وإذن هم بلينا وستحجر ستين وحاجر مامولا ستح بلوت جرا وأربعة ولاتين وإن هذا حلقة وكان ولا ذكرها أو كم دي أبا وهلك فديه مامول كقبل كبنادق ويفرق بديهين مركاتي الله إذا كذا ليه هاي مع عبد الله مدح ونقصود ويني على هذا ما ندور ذا المروحة قبتين ده يقول صار كي أبي الله يطلعيه سلاسي وحلايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم تسير عبد الله سبحانه Juba Ras State